بسم الله السلام عليكم سوماليا مر walba waxaan ku celcelinaa diinteena waa jecelnahay waana ku dhaqanaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa jecelnahay wadadiisana waa raacnaa bal labadan sheeko oo yar yar aan dhaqankeena ku miisaano sheekada koobaad diinteenu waa diintii midaysay oo sintay Abu Bakr Siddiq iyo Bilal bin Rabaha oo ka yimid ardul Habasha si kale haddaan u fiirino waa diinta sintay saxaabi midabkiisu madow yahay iyo saxaabi midabkiisu cadaan yahay ma sinay inaga Soomaali ahaan oo dhaqanka ama ku dhaqanaa oo dhaqan dhexdeena yaala dhaqankaasi ma yahay oo ma aaminsana inaan nahay dad siman oo waxba kala sareynin waa miisaanka koobaad oo aan rabno inaan bal dhaqankeena ku miisaano miisaanka labaad saxaabi waxaa jiray ahlu sufada nabiga sallallahu alayhi wasallam kamid ah oo ku jiray oo waxba haysanin markaasa magaciisana waxa la oran jiray Julaybiib marka nabiga sallallahu alayhi wasallam maalin wuxuu ku yiri Julaybiib maxaad u guursan weyday markaas wuxuu yiri rasuulka ilaahayow yaa gabar isiinaya yani faqiir baanahay waxana ma haysto yani midab ahaana dadka qaarka ay aaminsan inuu fool xun yahay buha kul aan ma aaminsan shakhsiyan inuu qof fool xun jiro laakiin dadkaas uu kamid ahaa marka wuxuu yiri yaa isiinaya gabar oo ii guurinaya rasuulka ilaahayow ana xaaladeydu ay sidaas tahay markaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu diray wuxuu ku yiri u tag saxaabigaas gurigiisa tag waxa ku tiraahdaa gabadhiina rasuulka ilaahay baa idin soo weydiistay wuu u tagay wuxuuna ku yiri hadalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri labadii saxaabi oo gabadhii dhalay oo gabadha hooyadeed iyo aabaheeda aad ay u farxeen waxay yiraahdeen ma sha Allah rasuulka ilaahay waa soo dhaweynana aad baan ugu faraxsanayn inuu gabadheena naga soo doono markaas wuxuu yiri isagu gabadha uma baahnaa anigu ii raadinaya biro labadii saxaab waa isfiiriyeen yaa adigaagana weyna yaqaaneen gabadhiiba marka gudaha ka maqashay markaasay tiri ma waxaad aad caasinasan oo diidasan rasuulka ilaahay fariintu idin soo dhiibay miyaad rabtaan inaad dhiibtaan wallaahi ya rasuulka ilaahay ninku ii dooro waan guursanayaa bay tiri sidii bani ku guursatay dhaqanka noocaas ma leenahay Soomaaliya marka oo dhaqankeena ma kamid yahay bal labadaas dhaqan aan ku miisaano dhaqankeena hadduu jawaabuhu ay noqdaan haa waan leenahayna de sax weeyo oo diinteena waa jecelnahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wadadiisana raacnaan waa jecelnahay hadday may noqotana waxba inaga khaldane aan saxna waxa inaga khaldan insha Allah assalaamu alaykum